السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي وعنو ونكسن وحنا كسوقنا هاي جامعة الإسلامية في كينيا فرع إذا مجالة مومباسا. جامعة أيا وحي أسبوعا هي شيء اعتراف كرسمي دولة دالكن كينيا جامعة سيسو. جامعة مدير هيستيكم الجارة مسوقي اعتراف كان رسمي أيا هاتن إن جوشن أي جارتي وحا أي تهاي مد أي سوين أي وفرحين أرضاً يولي بصدق وكلام أرضاً كلا قديسنا جامعة فرعية كلا قديسنا دلك كويا لا وحكبرتها يضنا أي شعور توضع أي نوم وجهنا أرضاً أي وح أي شيء جان إن تهاي مد ونكسن إسلام كان وحبنا كبدل دونتا إن تيادي وحبر شذا أي هل كان أي كيل جرين إسلام كان هل دوران شهادة رسمية ودنا عادولة كإماتا قدوميها جود أهنا أساسها جامعة دكتور شيخ محمد شيخ عثمان ayaa isagoo ka hadlayay waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay mirihii uu beerana haatan la goranayo muddo dheer kadib wuxuu uu sheegay in jaamacaddu ay tilaabooyin horumar leh ay sii qaadi doonto si markaasi ay mujtamaca muslimiinta ee dalkan Kenya iyo bariga Afrika ku nool ay uga heli lahaayeen waxbarasho tayo sare leh sidoo kale macallimiinta jaamacaddan wax ka bara ayaa qaar ka mid ah oo nala hadlayay waxa iyagana hadaloodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بمادس كله نوافجي وإسلام كنا قدقي وإن دين تأي خير كبرنا نوافجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وحان إلهي أقوم هذا علني إن جامعتنا الجامعة الإسلامية في كينيا إن يشلم ويدرد اعتراف رسمي أي شيء warqadii اعتراafka rasmiga ee dawladda ay siisay marka koowaad Ilaahay baan ugu mahad celinaynaa arintaas na waafajiyay oo na gaarsiiyay waqtigan inaan اعتراafkaas aan helno midda labaad aniga ku hadlayo magaca macallimiinta magaalada Mombasa faraca الجامعة الإسلامية في كينيا magaalada Mombasa oo magacaygu uu yahay Mahad Mooge waxaan leeyahay waxaan u mahad celinayaa Ilaahay ka sokow madaxweynaheena ويليام سامويل روتو oo nasiiyay warqadaas اعتراafka jaamacadda noo siiyay waxaan leenahay aad baad u mahadsantahay madaxweyne sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wasiirkeena aadan barre ducaale oo kaalin aad iyo aad u weyn ka qayb qaatay arintaas iyo inay noo suurto gasho in la helo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa alaakh walaalkeen Nuurdiin waasan sidoo kale kaalin weyn ka qaatay sidoo kale waxaan kaloo mahad celinaynaa رئيسكنا والدكنا الشيخ الدكتور محمد عثمان إلهي هنو حفظي عمر دير عبادة سنة الله سيو ومالنتي جامعة وأساسي إلى يومنا هذا جهدي آد وين بحيني كان أسكون دي مركزتين جامعة نقطة جامعات محترفة ومدة كفايديستو وإسلام خاصة مدة كينيا وكفايديستو وفعلا ضد بدن ودعاء وكفايديستين dad badan oo ay ma qudaada ayaa ka soo baxay rag badan ayaana wali ka faa'iideysanayo rag iyo dumar ba iskugu jiro marka waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala Sheikh Maxamed ha kaaga dhigo jaamacaddan iyo asaaskeedii iyo rafaadka la soo martay waan ka warhaynaa Ilaahay ha ka dhigo oo cilmi yuntafacu bihi oo qofku markuu dhinto ajirka sii socdo uu ka mid yahay cilmigaas meesha laga baranayo Ilaahay ha ka ajirsiyo adduunyo iyo aakhiraba marka waxaan leenahay wadaadka sheekheena doctorkeena dadaalkaad muujisay intaas oo dhan soo dadaashay Ilaahay ka ajirsiyo haddana meesha ku joojinayna sii wad waxaan kale u mahad celinayaa macallimiinta dhammaan iyo ragga muasisiinta iyo ragga mudiir العامka doctor Sonkor iyo waqeyrihim waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haniga ajirsiyo dadaalka aad muujiseen annagana aad aan ugu faraxsan haddaan nahay macallimiintii haddaan nahay Mombasa haddaan nahay ardadii waxbaranaysay sidoo kale aad bay ugu faraxsan yihiin inay jaamacadda اعتراaf rasmi heshay waxaan leenahay alxamdulillah awalan wa aakhira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu wal minna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum sidoo kale qaar ka mid ah ardada jaamacadda wax ka barata oo iyaguna la hadlayay ayaa hadalladooda waxa ka mid ahaa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad أما بعد وحكتر سمع عيجو حلا فرح عبد الله الشري وحكتر سنة أرض جامعة دليقتها كارهان لقد عربي كالبرتا مديرة لجنيه هذا نصف عنا لقد أقبض الحمد لله
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in jaamacadda ixtiraafo aad baan mataqaanaa ugu faraxsanahay waxaan kusoo dhaweynayaa qof kasta oo rabo inuu jaamacadda wax ka barto alxamdulilah aad baan mataqaanaa ugu faraxsanahay dhammaantayada ardaydeena jaamacaddaba inuu nagala ixtiraafo jaamacadda runtii jaamacadda aad bay u wanaagsan tahay intaa wax ka dhiganayay si fiican aan wax uga fahmay ilaahay mahad iska leh ustaadiinta hadday ahaan lahayd iyo hadday macallimiinta ahaan lahayd aad baan ugu mahad celinayaa anigoo wax yar ka dhiganaya 6 bilood camal baa haddana waxayba ka dhigan tahay inaan 2 sano camal aan dhiganayo alxamdulilah ilaahay taa ku mahadsan inaan marka hore jaamacadda imaaday oo wax ka bartay ilaahay baa mahad iska leh ilaahay i waafajiyay runtii waxaa dhihi karaaba jaamacad aan dhigto tii ugu fiicneed waxbarasho aan barto waa meesha ugu fiicneed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya jaamacadda mabruuq calayka hambalyaa leeyahay wayna u qalantaa in la ixtiraafo waan jaamacad aad u wanaagsan qofka bartay un baa ka sheekeyn kara aniguna arday bartay baan ka mid ahay alxamdulilah ilaahay mahad iska leh qof kasta oo rabo inuu barto ama uu dhigtana aad baa u soo dhaweynayaa kusoo dhawaale jaamacadda Islamic University of Kenya isku soo wada duubo jaamacadda islaamiya fi Kenya ayaa aqoonsigeedan waxa uu yahay mid markaasi si la jibaari doona isla markaana ku dari doona xawaaraha jaamacaddan ay ku socotay mid kasii xoogan kii hore